بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كسر دواد فرحية قرحنة داوديال ميل بجوكتا وإذن سلامي ما تحروا إن إذن تسيو ناسها دعين وحلو فريسيني كرو أما لو أتكيني كرو إن شاء الله وحياو بدن أيان استعمال دونا هذا بإذن تسي إن شاء الله. بسم الله ما كورم حأوباهنا هاي waxyaabo badan aa lagaaga baahan yahay inaad samaysid laakiin saad waxaa idin tusinayaa habka aad iskugu qasaysid maaskaga aad marinaysid naaska wareegiisa isbuuci 2 mar insha Allah. fasliintana habeen walba waa marsanaysaa jirkaaga oo nadiif ah adigoo markaa soo qabisto jirkaaga nadiif u yahay aad habeen walba ku masaajeynaysaa waad marinaysaa 3 bilood toos haddii aad isticmaashid meeshiis ayuu ku noqonayaa kadibna waa adkaanaya insha Allah wax dhibna kuma keenayo kareemooyin badan waxaa jira hawaa lagu adkeeyaa wuu fariisiyaa laakiin waxaas waa laga fiican yahay waxyaabahaas waxa waaye mal isku hubo soo waxa isku hubtid sameeysa insha Allah marka hore intana idin tusinaya labadan qayb kadibna waxa idin tusin doonaa exercise-ka jimicsiga ama exercise qofka soo u yaqaano oo adkeeyo ama fariisiyo insha Allah marka hore kana ku hormareyna soo waxa u baahan tahay halkan waa ukunta qaybteeda oo yellow ah ujeeda wax kale kuma soo darin qaybteeda oo yellow ah halkan waxaan ku soo hoolay qajaar ama cucumber qofba soo u yaqaano qajaar ayaan soo hoolay waxa sameynaysaa qajaarka ayaa waxa ku dareysaa ukunta qaybteeda yellow ah intaan ayaa qasaysaa ujeeda marka sida u qastid waxa sameynaysaa isbuuci 2 mar ayaad marinaysaa isbuuci 2 mar marka marisid waxaad u sugaysaa ilaa iyo 30 daqiiqo kadib waa iska dhaqaysaa insha Allah. fasliintana waa idin sheegay fasliintu waxa waaye habeen walba jirkaaga oo nadiif ah ayaad dhaqaysaa waa marinaysaa waa ku masaajeynaysaa ma fahmino naaska wareegiisa ayaad ku masaajeynaysaa aad marinaysaa fasliinta habeen walba jirkaaga adigoo soo qabaystay oo nadiif ah ma fahmino 3 bilood markii aad toos u marsatid waxaad arkaysaa asagoo meeshiis ku laabtay oo adkaaday insha Allah. exercise-da kale waa idin tusinayaa midda kale waxay tahay waa barafka waa in aad ku masaajeysid maalin walba naaska fadhigiisa wareegiisa waa ku masaajeysid asagana uu adkeenayaa. midda kale waxay tahay waa exercise-ka ama gym-ka ama jimicsiga ama caalamiintada qofka u yaqaano sawirro walba idin tusiyo waa feeraha oo kale ay u xil saaran yihiin yacni waa naaska inay adkeeyaan oo meeshiisa uu ku laabto soo jimicsiga mar walba waa inaad samaysid qof buuran ma laha qof caatee ma laha qof normal ma laha yacni gym-ka qof kasta ayaa sameyn karo yacni haas dhil aniga caata ahay waa fiicanahay gym uma baahni gym-ka qasab inaad gym aad xitaa maaha gurigaaga ayaad ku samaysan kartaa waxyaabaha dhanka soo iibsatid aad gurigaaga ku samaysan kartaa yaa soo gym-ka dad qaar waxay ku leeyihiin gym uma baahni waa caataan ahay maya gym-ka waxa waaye murqahaaga ayuu kala bixinayaa aad dhan fudeed aad noqonaysaa soo waa qasab inaad samaysid subax walba aroortiyaana fiican oo caafimaad u leeyahay subaxdii aroortii waa inaad samaysid insha Allah. soo sabirada walba idin tusinayo waxay tahay feeraha ama caloosha yaa soo inay naasaha ay fariistaan ay adkaadaan waxaa yeeli karo waa inaad exercise samaysid jimicsi badan aad samaysid waxyaabaha idin tusina isticmaashiin dad badan waxay sameeyaan qaliin ay ku sameeyaan si naaska uu fariisto oo meeshiis uu fariisto qaliin markii lagu sameeyo abadan hatta duq waayeel hadaa noqotid naaskaas isma bedela taasna waa dambi weyn oo aad u weyn soo waxa fiican inaad samaysid oo dambi kugu ahayn inaad exercise aad samaysid waxyaabaha oo dabiiciga ah marsid taas dambi maaha laakiin qaliinka ayaa daran adigoo arkay fudud in aad yacni oo natural ah aad ku hagaajin karto naaskaaga ama ku fariisin karto ama ku adkaani karo waxba wax dambi faraha la gelin insha Allah. soo waxa idin tusiyay sabirro badan sabirradan oo dhan hadii yacni qaababkan aad arkaysaan oo dhan hadii aad u sameysaan waa hubaal shakil kuma jiro in naaskaaga uu fariisanayo oo adkaanayo insha Allah. soo saas sameeya asxaabtaada musisha jazakallahu khairan. mideeda kale gym-ka hadii aad u baahatid hada kan camal sawirkan u jeedaan kan camal gurigaaga aad ku sameyn kartaa subax walba insha Allah. soo hadii aad u baahatid gym-ka isli hadii aad joogtid gabar waxa jirto oo qayb gabdha iyo qayb wiilal qabta qaybta gabdhaha ayaa muhiim idinka gabdhaha daatihiin
gabadhaasaan fiican insha Allah jimkeeda waxaa idinkugu soo qoraa telephone numberkeeda iyo channelkeeda magaciisa commentiga ayaan kugu soo qoraa insha Allah asxaabta u sii sheegaray jazakallahu khairan assalaamu calaykum waraxmatullahi